سولو أدبا كو سلام يا ولا تقالي برنامج بدن بان كهدليا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدبية أو جارسية ولا ليال برنامج كي قاعد وبديها مانطع إن شاء الله وحيابها يربان تابن دونا لبدن بري وحيابها كسعودة ميديها وأوتشيدان وحيابها ميديها كسعودة ولا ليال وأوتشيدان وحبدن أو أن رنتي أوجا هنا ويجرتها أو أن أنت عسلي هاي ومدن صوماليات أو ورسن سعودة الهلية وين سود وأدبن كو سلامة يا مانطع تو برنامج كي جوحي وكوسي أبسني هاي لبدن بري بواد عرفتين waxaa noo yimid qolooyin cusub oo awal wadaninimada iyo midnimada iyo wanaaga umada Soomaaliyeed isku baray marka isku bareena ka dambana u dalacay igu shubo $150 igu shubo qalalan $150 igu shubo qalalan $150 igu shubo hadaad igu shubato $150 maanta waxaan ku soo caynayaa qabiil ila qabiilka rabtid dadka ayaa soo bixeen marka barnaamijkayga waxaan ku bilaabayaa horta midnimo qaran ayaan ka bilaabayaa hadii Ilaahay raaho dhamaantiin umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaan waa in salaamaya أنو هرتو ريالتي هدا الدنيا دا جرته والله وآخر الزمن وحيابها آخر الزمن أن وقاعدة إن أي تاي هدان دمرنا واجه هرا فانكا إيو بدغدا إيو محيط إسحايسينتا إيو حنتا إيو حسردا إيو وحيابها سوحال ديشرو دمر كأوبضان دمرو حال قاتا أنا حالي ديسيي ورسنا هان دنبي وحال أركي نمان مصيرسن وما الحدو كلا دعيا oo dhalinyarada yaryarayd ee Muqdisho ka shaqeynaysa ee dalkooda u shaqeynaysa ka xanaaqsan oo ka masayirsan waxa la arkay niman habeen iyo maalin miidiya intay soo fadhiistaan habeen iyo maalin ayagu is amaanaya manaagba waxa la dhijiro wixii xunba xawaale dumarka la dhijiro way is amaanaan oo waxay dhahan waligay intaad halka igu aragteen 2 sano iyo bar ayaan ku jira midnimo qaran oo inta helayo oo midnimo life aan ahaa oo umada Soomaaliyeed ugu baratay wanaag iyo wadaninimo iyo wanaag ay ugu baratay waligay intaan soo hor fadhiistay aniga ina maxamed aniga ina jaamac waliga intaan soo fariisay ma dhihin anigu xasaanahay aqoontaydaadna war u haynin waxaan haybaadna war u haynin waxaan kaliyo in kala hadlaa waa wadaninimada iyo qabyaalada joojiya iyo Soomaaliya midooba iyo dalkayga aan jecelahay taana inta aan noolahay oo nafti ugu jirto oo aan neefsanayo adduunkan Ilaahay wax yar buu ummadaba wax weynba ma joogaani inta aan neefsanayo aan leeyahay waan u hadlayaa waanan idinku baraarujinayaa waanan idin dhahayaa maxay tahay dad yow Soomaaliyeed midooba oo wanaaga iyo walaaltinimada u istaaga walaalayaa midnimo qaran haddaan nahay umada Soomaaliyeed ee maxay tahay dadka midnimo qaran oo umada Soomaaliyeed ay ku xiran yihiin qabiil ma lihin qabiilkayagu waa Soomaali waligayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee midnimo qaran soo gashay waligeen ma aan kala saarinin ashwali dhalinyaro badanayd oo qiimo lahayd oo sharaf lahayd ayaa midnimo qaran waxay uga hareen aflagaadooyin ka dhacaya maanteeto maxay tahay boosaneerada caashaqa ninkan u bixiyay iyo beesada caashaqa beesada raadi boodhari wiiga ceebeeyo boodhari wuxuu ahaa
ninkii Soomaali jacaylkeeda taariikhda ku lahaa soo magacaas ma raba inaan siiyaba waa boosaneerada caashaqa iyo beesada caashaqa iyo 110 ugu shuba iyo 150 ugu shuba la dhahay magaciisa ana runta idin sheegaya aniga wuu ehelkayga yahay adeerkaya waxiga xiga ma laha wuxuu yahay dhan waan ogahay waxa alla wuxuu yahay waa habeen iyo maalin qabiilkeen maanta caaya iyo qabiilkeen aan wax ka sheega 24 saac qabiil Soomaaliyeed ee awoowe leh ee sheekh leh ee shariif leh ayuu habeen iyo maalin dul taagan yahay habeen iyo maalin ayuu dul taagan yahay wuxuu ka bilaabay midnimo qaran markuu ku jiray 4 sac marna inuu waqooyi reer waqooyi laflaf iyo qabiil u caayo marna inuu maxay tahay reer Puntland laflaf u caayo oo dhahaba adduunkaan ugu naceebahay adduunka dhulkaan u goynaya ma jeerteen dhulkaan u goynaya ma jeerteen inuu dhaho dhulkaan u goynaya ma jeerteen ma aniga dhulkaan u goynaya ma jeer bal adigu maxaa tahay you are nothing inuu dhaho haddana soo boodo dhaho ma hursada dhulka u goynaya nimanka naagaha dawladda taageero waa ma hursada dhulkaan u goynaya labadan bari waxaa socota qofkii yiraahda dawladdeeda ay guuleyso dawladda barakaysan inuu dhaho waa ma reexan oo ka daba qaato haddaan anagu midnimo qaran walaalayaal caraca waxa iga keenaysa laakiin wali ma arag intaan soo fariisto anoo qabiil magaciisa idin sheegaya waligeed ma dhicinin hadda ka hor baan intaan la hadlaan waxaan ku yiri 100 jeer interview la yeeshay baan waxaan ku yiri walaalow waxaan doonaynaa midnimo qaran inay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku soo hoydaan ma rabna inaad qabiil la caydo inaad maanta dhan reer qiimo leh aad aflagaadayso oo habar gidir oo waxba geysan aflagaadayso oo aad aflagaadayso maxay tahay qolooyin aan waxba geysanin oo aad qabiil dadka ugu walaalo ma dooneyno markaas aad muxuu dhigi jiray jeejay waa bukaan socod waay ayada laftirkeeda bukaan socda ayada laftirkeeda aan isku kalsoonayn ayada laftirkeeda bukaan socod weeyaan wiilasha intuu luqa ugu dhunta ayuu ugu xaman jiro dhijray waa bukaan socod waxay tiriyaan habar gidir la soo qaadin waxay tiriyaan isaaq la soo hadal qaadin waxay tiri maxay tahay oo isaaq qaba waxay tiriyaan la soo hadal qaadin ma jeerteen oo ayada reer Puntland oo ma jeerteen ma rabtaan la soo hadal qaado wax uuna adduunka inta aan aqaanay anaana midnimo qaran soo galiyay anaana u yeertorto marka in sheego khaladka ana iska laha ana wiilkaas ugu tagay beejkiisa anaana la soo hadlay anaana ku yiri las dhalinyarada iyo ummadda Soomaaliyeed waxay wax ku fahmayaan together ina ahaana marka kaale walaal gacmahan isqabsano maadaama kaliya tahay aan wada halgano gentleman asaga aniga soo raadsaday midnimo live barnaamijkayga ayuu ku xirnaa aniga iyo maxay tahay wiil aan habareer u holday ina kaba yare ayaa asagoo dhan ba horta soo hirgelinay reality-ga ilaa maanta caawan is amaanaya ana dumar hadii rag iyo dhan isku kaydul amaanayaan waa inaan anigu xoogaa idin sheegaa anigu waxaan ahay ninka qofkii soo gacan qabatay reality marka adii sheego oo uu ku diloon jiro oo walaashii soo dhaltay camal aha walina walaalkay weeyaan waana dumaashida waana xarunteeda adeerkood xushmuuna iga mudan yahay in kasto uu asagu aan ilaahay uga baryayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu adkeeyo ilaahayna inuu ka dhigo midaan nin wadinin oo asagu is wada intaasaan asaga Cabdisalaam uga baxaya hadalkiisa ilaahay waxaan uga baryayaa inuu nin adag ka dhigo isna adkeeyo laakiin Cabdisalaam sidiisa kale waa wadani waan ogahay inta ka badanna igama helayo laakiin aniga iyo ina kaba yare labada qof ee diyaaradda uu ku duulayo aha ayaan ahayn anigu aha wixii habeen iyo maalin jiray niyada u dhisi jiray hadhicin hajaminta ku haayay qof midnimo qaran kamid ah hadalkii kii oo maxay tahay ambulaacada caashiqa iyo maxay tahay boosaneerada caashiqa hadalkiisa waxa ku jiray midnimo qaran baa waxaan uga soo baxay waxa dhowr mar baan arkaa soo leeyahay isaaq qof islaam oo midnimo qaran ku jira oo Cabdisalaam gentleman una madaxa u saarnayn laakiin qofku markuunan alla ka baqin oo aakhira lahayn oo kaada iska dhaqinin oo una diin cilmi iyo aqli midna lahayn wuxuu rabo ku hadlaa qof hawiye iyo daarood iyo isaaq qof Soomaaliyeed oo midnimo qaran ku jira oo Cabdisalaam gentleman aan u foorarsan oo aan dhici jamin ma jiro qadarin gooni ah oo abaf ah ayaa loo sameeyay jacayl baa la tusay zaayid ah waayo waxa niyada iska niri walaalaha dhalinyarada reer waqooyiyeena maxay tahay ha ogaadaan inaan wada jecelnahay jacaylkii baan asagoo kula dur jabnay waa reality markaan idin sheego wiilkaasuna waa wadani laakiin amar kala haysta ana runta idin sheegay ilaahay baana ka bariyay arrimahaas inuu ka furdaamiyo raxmaanka ayaan ka bariyay waxa ku soo haray ninkan walaalayaal Soomaaliyeey ninkani wuu ku cayshay inuu qabiilada caynayo Soomaaliya arkin waa wuxuu ku cayshay waa wax ku soo galeen gudbiyo oo gaarsiiya maxaatiin afartiina qof oo daawanaysa walaalayaal gaarsiiya oo gudbiya because maanta waxaan rabaa clearly ummadda Soomaaliyeed inay wax u fahmaan baan rabaa horta waxaan idin sheegayaa midnimo qaran dhalinyarada ku jirtay midnimo qaran especially Cabdisalaam iyo wiilkan maxay tahay la dhahay maxay tahay bulaacada iyo boosaneerada ah ee ummadda Soomaaliyeed dusha laga saaray ee qabiilada Soomaaliyeed dusha laga saaray ee habeen iyo maalin aflagaadood
dada wada ee aan dumar dhaafeen ee aan gabar dhaafeen ee aan wiil dhaafeen ee habeen iyo maalin shaqada ka soo dhigtay dadka Soomaaliyeed wuxuu sheegtay abwaan wuxuuna sheegtay magaci boodhari labadaasba waa ka xumahay aad baan uga xumahay waana ka xal marnay abwaaninta Soomaaliyeed dhalinyaro abwaan ha jiro oo adduunka aan ugu jecelahay oo Soomaaliya ama waqooyi ha joogan ama Soomaaliya kala joogan ama xamar ha joogan ama gaalkacyo ha joogan xaad iska taagayso kuwaas horta meel buu uga dhacay kuwaas meel buu uga dhacay runta markaan idin sheego this guy walaalayaal midnimo qaran waxyaabaha wanaaga uu ka mutaan idin sheegaya midnimo qaran in alla inta taageero noo ah lacag buu ka qaatay luqyadu u galeen asaga iyo mid Ibrahim la dhijiray laakiin hadda wiilka bilaash baan u soo hadalay waa inuu ma jiro mana maqla hadalkiisa laakiin asaga iyo anyway asagu luqyada wuxuu u galay qof kasta oo midnimo qaran ka mid ahayd waxaan ku leeyahay lacagta uu ka qaatay midnimo qaran iyo dadka taageera $8,000 way ka badan tahay talyaaniga aniga midnimo qaran aniga iyo qof kale ayaa talyaaniga lacagta ku aada u dirnay jacayl aan u qabno Soomaalinimo jeebkayga xalaasha ahaa xoogayga xalaasha ahaa ayaan isticmaalnay wanaag iyo sharaf ayaan ugu istaagnay in uu dadkiisa iyo dalkiisa wuxuu qabto waxa u sameynaya ma ahayn inuu aniga wax yahay ama aniga aan waji ka leeyahay ama anigu aan wax ka damcsanahay waxa u sameynayna aniga wiilasha Soomaaliyeed ee isku dayay wax walba wanaaga dalka Soomaaliyeed inuu bato dhalinyarada Soomaaliyeedna hurdada inay ka kacaan oo ay toosaan habeen iyo maalin waa u taaganahay forever inta aan noolna xoogeena xalaasha ayaan ku dhuminaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad ogaataan this guy midnimo qaran gabdhihii ku jiray oo dhan luqyada u galay waxa la wixii ku xirnaa luqyada u galay kuweega annaga isu tagayno midnimo qaran wiilkan waa dhibaataysan waa sharci la'aan aan wax u qabanno habeen iyo maalin wuxuu ila daba taagnaan jiray markuu meesha luuqa ka galo rag badan baa waxay ugu dhahaan sidee bay naag reer hebel idin wadaa reer hebel naag sidee bay idin wadaa oo 24 saac markaan ka sii jeesa markaan walaalo qabiilha caayinba wuxuu soo galayaa asagoo qabiiladii magacyo u bixinayo babababable boqol jeer aan yar waxaan ku yiri walaalo notice baan ku siinaya jooji qabiilada aad caayaysa haddaad rabto inaad taariikhda gasho inaad wanaag fidiso in dadku kugu daydaan in dhalinyarada aan soo jeedino dagaalkan iyo qabyaaladan iyo caydan iyo aflagaadooyinka qabiilada jooji anu wax gabar caayan adduunkan ugu nabahay wax qabiil caayan adduunkan ugu nabahay runta markaan idin sheego waa runta Ilaahay markaan idin sheego ma fahanteen abrina waa aakhiro maantana waa adduunyo abrina waa aakhiro waana la dhimanaya wiilkaas garab iyo walaal iyo gacal baan u ahayn hadhicin ha jabin baan ku wadnay anu iga bilaabay wuxuu la soo heshiiyay oday oo maxay tahay anu ninkaas aflagaadayga ma mudno ayay wada soo wada tashteen waxa la yiri midnimo qaran naagtaan ma jeerteen horta ka soo qaad naagtaan aabeeduso aniga ma jeerteenkay waxaan ba ka fakarayaa Soomaalinimo laakiin aniga bay ugu mashquuleen aniga laakiin Soomaalinimo ayaan raadinayay ka soo qaad midnimo qaran anaga dumarnimo hor kacayso waa dictatoriyad waa dis ka soo qaad intaan taa la dhihinin walaalayaal $150 baan kaga sheekeynayaa aniga Minnesota ku noolaa America ayaan joogaa 25 sano magaaladayda waxaa jooga wiil Soomaaliyeed iyo dhalinyaro Soomaaliyeed iyo dad badan Soomaaliyeed oo electionka Mareykanka u carara maalin maalmaha kamida ayaa anoo shaqo ku jira waxaan arkay taleefankaygii oo 100 qof soo wacday aniga oo aan war iyo wacaal midna ka haynin ayaan waxaan arkay 100 qof oo taleefankayga soo wacday markii aan taleefankii shaqadii ka soo baxay oo aan guriga imaaday dadkii oo dhan oo wada raad war maxaa dhacay Jamiilay midnimo qaran hadaatiin maxaa maanta idin geeyay inaad aflagaadaysaan Cabdi Warsame عبد ورسمة يا أفلك أنا جتاجر دي سأنا ويلكاس كده شو مديا ولكن وأنا جنا صومالي أو نن جدك أفري واي وأنا أمريكا إسكعلنا يدك كان محيط وضن كان أول شيء محا أنا جنا نحجليه ما يمانت بعيني سين هذا هو فيديو جباري فيديو وحوانيك عينا بلعت عاشقة وأنا جيستي وعي فيديو جان ماشي كساري وعي وحير ولا له محكو كلفي ولا لو waxaan election American ana American citizen ana wadankan ku nool ana dalkan ka warqaba ana og waxay maxaa dadkan u ceyrsaneen ku akow maxay tahay Puntland saad rabto u aflagaade waaniga habeen walba ku dhaha daaqab yaalada waadiga diiday ku soco laakiin Minnesota iyo Mareykanka iyo dhalinyarada maxay dadka Canada maxay tahay daa oo amaansi wuxuu igu jawaabay oo ilaa bukaan baa taa kuma ogeeni ilaa bukaan baa tahay إلا قف عدة قبل ما صاحد القاضي كرو ورعدة محاكا كدبر دقي بلا كدبر دكعدي محاكا كدبر دقي عدة ولا لها عدة كاجي محاكا كدبر دقي مدة كله ويلك أمريكا إلكشن كيسب محمد وكتر تبع محاكا صوت دقي ما عيرسته كوي سومالي جوجي ما كوي أكاد كوي سومالي أنا بهدين يبان كنت كل شيء جاي أظن دك عين وأفلقات أيها هذا سياسي
si loo hadlaa ayaa professional si loo hadlaa ayaa qofkaaga qaladkiisa tusi kartaa ayaa shicibka Soomaaliyeed wax tusi kartaa adoon dadka aflagaadeenin ma ka joogti halka wuxuu u galay wiilashii dhaluuqa wuxuu yiri way ugu xanaaqday oo waxay tii Cabdi Warsame maxaa u soo hadal qaaday oo Cabdi Warsame maxay tii reer Puntland ma jeertaanku way suursadaan way isaga aamus waa isaga tagay maxaa ku xigay sheekadu uu baxay ninkan buu soo kaxaysta midnimo qaran aan kala soo wareegno iyo naamnimo ilaa hadda codadkiisa waraya naamnimo qaranayeen nagu soo wareeji na adigu wax waa noo qaban weyday na dawladdan wax weyna tari weyday markii ugu horeysaba wadani ma ahayn wuxuu u soo galay midnimo qaran inay dawladdu wax tarto anigu midnimo qaran uma soo galin in dawladdu waxay tarto qof kale midnimo qaran uma soo galin inay dawladdu wax tarto ina caan ku noqono uma soo galinin already ana naftayda caan u ah oo isoo waxaan ahay iyo waxaan gala iyo waxaan gudan nin kale iyo naa kale midna uga ma baahni inay bartaan iyo inay waxaan sameeynayo waxaan u sameeynaya iska wuxuu qabso iyo isxilqaan baan u sameeynaya fag baa la yiri waxaan aragnaa maalba midnimo qaran intuu ku jiray marna asoo adeer socdaal soo saaray sawirkiisa caynaya oo dhahaya waa nin muhursado oo dawladda muhursigu ku taageeraya mar maxay ta maalin ba qof baa la soo saartaa dadkii dawladda ku jiray ayaa la soo saartaa waxa soo markaa aragnay ayaan midnimo qaran ka xirnay at the same time markuu sheekadan keenay nagu wareeji waxa ka dhiganaynaa NGO oo lacag baa nala siinaya oo madaxweyne waxaan ka dhiganaynaa ninka anagu aan wadano oo asaga maxay ta lacag naga dharjinayo oo cirka dhulku naga qarnayo oo xisbi baan ka dhiganaynaa ayaan anagu midnimo qaran ka saarnay maalin walba waxaan maqlayaa midnimo qaran dadku horta ha ogaadaan midnimo qaran sideeda ayaa u nooshaa sideeda ayaa u dagaalanaa habeen iyo maalin waa ay daawataan habeen iyo maalin waana daawataan dhamaantay midnimo qaran annaga oo kulligay qabiil walba oo Soomaaliyeed ka kooban dalkayaga iyo dadkayaga ayaan u taaganahay waxaan idin sheegayaa ayaan dhaweyd wuxuu maagay waad ogeydeen gabar aan waxba u geysan oo wadaniyad ah oo dawladda taageerta oo afgaaban oo wariye Soomaaliyeed ahaan jirtay oo qiimo iyo qaaya badan oo sharaf leh oo maxay tahay aan qof baxtaa dhibaatadiisa aan ka hadlin except dalkeedii Sulaykha Cabdullaahi baa la soo saaray sawirka kulligiin waa daawateen fiidiyoyaashiisa Soomaaliyeed waa daawateen fiidiyoyaashiisa maxaa ku qornaa fiidiyo uu leeyahay waxa ku qornaa oo maxay tahay naag mareexaan ah oo mareexaan oo la ogaaday hadda inay mareexaan tahay gabar darwiish oo aan ninna qabiilkeeda kala hadlin oo aan qofna aflagaadayn oo Soomaalinimo qarankeeda TV-geeda qaranka Soomaaliya u soo shaqeysay oo jecel dalkeeda ayuu intuu halka la soo istaagay wuxuu yiri maxay tahay waa mareexaan waxa nala socdo oo anaga midnimo qaran hadaan nahay nala socda wiil la yiraahdo maxay tahay wiil la yiraahdo Cabdullaahi Joorre waa kabtan Mareykanka haddana waa ninka programka u dagaalama taakule ciidankaaga midnimo qaran uu ka mid yahay Cabdullaahi Joorre laasinamkiisa waxa way xoosh nimankan waxay isu geysteen ninkan waxa la dhahaa xoosh laasinamkiisa waa xooshkan waxa iskale mareexaanka la dhahaa xoosh so this guy waa mareexaan ninkan mareexaanka oo ciidamada u tiriyo oo ciidamada waa mareexaan xataa ninkan ciidamada mareexaan shaqo kuma laha waa wiil wadani Soomaaliyeed oo dadkiisa u dagaalamayo waxa la yiri oo ciidamada waliba ciidan ah oo ciidamada dalkiisa u dagaalamay waxa la yiri waa mareexaan waxa la booday haddana waxa lagu booday maxay tahay laba wiil oo wanaag iyo sharaf iyo wadanimo dalkooda u taageerayo waryaa mareexaan Soomaali ma ahamiya madaxda Soomaaliyeed way forever na hogaaminaysa forever ayaga na hogaamin doono bullshit-ka nagala taga mareexaan miyayna Soomaali ahayn mareexaan miyayna ummadeena ahayn mareexaan miyayna walaalaheen ahayn mareexaan maxay tahay qof mareexaan ma dhihi karo dawlad qof muhursadaan ma dhihi karo dawladda taageeraya qof mareexaan ma dhihi karo dawladda taageeraya hadduu dhaho hawada lagu kala goosana why hawada maxaa lagu kala goosana qof alla qofkii jiiq dhaho oo dhaho maxay tahay war way fiicantaa dawladdu iyo ma sha Allah ilaahu dawladda nooda waa mareexaannimo ku taageeraya laakiin mareexaannimo ku taageeraya ma ahane waa qof Soomaaliyeed oo Soomaalinimada ku taageeraya aan $150 lagu shubanin $150 aan lagu shubanin waxaan ka soo ilaabay sheekadii oo Minnesota marka uu electionka Cabdi Warsame caynaayo $150 baa Minnesota looga diray $150 markaas waliba wuxuu ugu leeyahay $150 nin ma jeerteen ay soo diray ayaga la isku jabiyaa waa soo ogtaa kan u dirayowna adna waa soo ogtaa $150 baa loo diray oo uu ku caayay Cabdi Warsame oo una fartiisa dhacday awowgiis xataa gaari karin $150 hadda wuxuu leeyahay duqbilow baba dhahayo $150 $500 $150 buu ku caayay Cabdi Warsame $150 baa loo diray oo uu yiri $150 baa la soo diray ku kala soo diray ayaga isku jabinaya bal ka sheekay
qofka saasa waay qofka maanta intuu meelaha soo fariisto qof alla qofkii dhaqaaqa dhahay waa mareexaan qof alla qofkii dhaqaaqa dhahay wariya aniga khaladka lama tuso qof islaam oo laga gardaran yahayna waligay uma aamusinin xaq darrada haday tahay walaalkii aniga ila dhashay kaysana wallahi inaana ka yeelaynin waayo waa xaq darro waxani waa xaq darro xataa dhalinyaradaasay jiiqay jaaq uma dhahaan ma caayaan ma aflagaadeeyaan waxba kuma darsadaan wuu iska daba socdaa 24 saac wuxuu aflagaadeynayaa fannaankayagii abwaankayagii annaga midnimo qaran naga mid ahaa maxay ta oo waxba u geysan shimbirlays oo waxba u geysanin ayuu habeenii maalin caynaya shimbirlays midnimo qaran uu kamid yahay waa wadani Soomaaliyeed qabiilkiisa Ilaahay baa ka dhigay dalkiisa waa jecel yahay ciidiisa calankiisa habeenii maalin buu u halgamayay annagoo jirin buu sameeyay kooxda la dhaho midnimo annagoo midnimo qaran jirin buu sameeyay kooxda la dhaho midnimo oo heesaha midnimo sameeyay oo dalkiisa u halgamayay ما فهمتي قفكو حدونا واحد dhibaatada jirto waxay tahay qofku walaalayaal haduuna aqoon lahayn mid diini lahayn oo mid cilmi lahayn sidoo looga soo waday America la keenay oo waliba tarxiil wuxuu ku leeyahay habeen maal wuxuu ku celceliyaa oo boosa sadeeqa waa kaala nimid sheekada dhanna waa hayna qabyaalada iyo qurunka la wareegisay umada cuqdada iyo habeen maal la taagantay ee dadka Soomaaliyeed cuqdada iyo qabyaalada kala gelinaysa naga jooji dawladda waxa u daba cararayso walaalayaal dhagihiina Soomaaliyeed siiyo wax yar dhagihiina aniga maanta Allah subhanahu wa ta'ala iyo oofsado wax la iisoo taagayo ayaan ogahay oo idin sheegaya wiilka la yiraahdo Cabdinuur ee ka shaqeeya White House-ka Soomaaliya whatever loogu waco filla Soomaaliya wiilka la dhaho Cabdinuur ee ka shaqeeya waa nin dhalinyaro ah oo dalkiisa dawladda Xasan Sheekh ka shaqeynay oo tii koreysay ka shaqeynay oo wax ku bartay oo abtunaa dalkiisa u taagan oo wariye warfaafinta u shaqeeya ah fiiriya xaq darrada nimankan ku jiraan baan idin sheegaya especially anigu mid kale kama hadlayo ka Allah soo hadeeyay wuu xanuunsan yahay laakiin ninkan ka hadlayo waad ogtihiin ninkan ka hadlayo waa boosaneerada habeen iyo maalin ku maxay taqaraabta abwaan baan ahay iyo boodhari baan ahay oo boodhari ceebeeyay kaas ayaan ka hadlayaa magaca naga ceebeeyay kaas ayaan ka hadlayaa ninka dhahay maxay ta midnimo qaran baa isaaq ayda oo tiraada Cabdisalaam waa isaaq wariya ana ah isaaq awlaadayda ah isaaq kuwii ugu sareeyay baan anigu dhalay hooyadii waxaan ahay isaaq dhashay oo waliba garxajiis dhashay xishood oo shame of you ima dhihi kartid oo mana dhihi kartid oo nuguma dhihi kartaa anagoo Soomaali isku nimid oo walaalo Soomaaliyeed oo wanaag ka taleyna Cabdisalaam oo adduunka ugu jeclayna oo asagu isxumeeyay nama dhihi kartid mana ka yeeleyno waxay isugu laga soo boqolay badow iyo dadka qabyaalada ee qashinka kala dhexbax dadka soo baraarugay wuxuu ku waashay habeen iyo maalin walaalayaal caawa waxaan u hadlayaa Soomaaliyeed qofka walaalkaaga oo laga gardaran yahay walaalka markuu gardaran yahay ceelisho oo marka laga gardaran yahay walaalkaaga xaqaha ugu hiilin qof gardaran reality-ga wataa maantayto waxaan iyo shalay maanta way isdaba carraayeen waa u jeedaan live bay soo galeen waxa loo soo galayaa oo la ceyrsanaya waxa way ninka la yiraahdo duqbilow habeen walba duqbilow horta gob inuu yahay baan idin sheegaya oo uu yahay ugaas run ah iyo ninka aad arki doontaan oo noqda sayid maxamed cabdil xasan inuu noqdo idin sheegaya ilaa iyo maalintii difaaca dawladda aan galno oo midnimo qaranka ay ka baxayeen maalin walba sawirkiisa ayay soo saaran jireen waxayna ka masayreen dadka badan ee duqbilow daawada ama ha caayaan ama ha cadaabaan laakiin ummadda badan ee duqbilow ka maxay ta ku xiran ayuu diiday
تايو كحمادة صورة تقبلوا على سوق من مقرن أيوة الحياة ورمحان عيول كان صوري سلوسو صار ما يمحيتني كان أنا قونا ورجورما يدماجين تدك جورما مهرين كبيدين مادان وردت كان أدو ده أفلقات دين إنسان جورما ويلاش حد عينا يعني من مقرن كم ده إيه الجمياش من مقرن كم ده من مقرن وحيد شوغان هاف ديس يير بيجوغان فيريا يير كورن حتى مرة إلا ما أنت يمادين إلا هذا ودرع إنسانية إسلام مركي وحي رادية لبضع نيجيهين قبيل قاضية واي كاس هبلو واي وانقانكا كوار أيغا يا واي مركي سوء قادين هذين يمالين وحي سوق اللي تاغين حتى وحي قدرين جوري أو وحبه قيسانين أو حتى لايف سوقلين أو حتى عيدان كي يدالكيسي محيطي وهل جمايو أي سوقلين مركي شاكر عبد النور بان كوكو نقنيا سوماليا مانتا البابك نجيه نفر مانتا رمتا يدي شيغايا شاكر عبد النور ayaan idin sheegaya waxaan idin sheegaya Cabdinuur xaq darrada lagu sameeynayo oo waxaan leeyahay dawladda Soomaaliyeed ay ka feejignow in Cabdinuur ku qaldantaan Cabdinuur xaq darrada laga sameeynayo ayaan idin sheegaya walaalayaal Cabdinuur walaal aniga waxay baray horta reality Cabdinuur ismaan aqoon dadka Soomaaliyeed Soomaaliya u shaqeeyo aniga madaxa ii saaran yihiin oo dalkeena bay u shaqeeyaan laakiin Cabdinuur aniga waxay baray Cabdisalaam gentleman oo maalin teleefankeyga soo siiyay sida ayaan isku baranay ka dambana waligeey ma wada hadlin malaha hal mar baan wada hadalnay laakiin taariikhda ayagu iiga sheekeeyeen baan ana idin soo gudbinaya iyo Cabdinuur maanta sababta loo ceyrsanayo Cabdinuur waa wiil Soomaaliyeed habeen iyo maalin waxay ku hayaan waa langaab oo asagu ma aha maxay tahay hawiyaha caanka ah asagu ma aha qolooyinka la yaqaano asagu ma aha waana nin shiiqaal ah oo shiiqaashi laga maxay tahay duceysan jiray wartiin baan idin soo sheegay walaalayaal Cabdinuur sheekaysu meeshay ka bilaabtay aan idin sheego Cabdinuur intii la wacay oo saddex nin waceen ayay waxay ku dhaheen naf baan nahay gaajo ayaan naf la nahay mana shaqaysano dawladdaana u dhimanay shil iyo kumina nama soo siiso caawan gurigii baan nala ka saaro gurigii baan nala ka qufushay Cabdinuur jeegiisi wuxuu yiri walaalayaal saddex bari ka dambo ayaa waxaan qaadanayaa mushaarkeygii والله إن أنا شيل هيسنين صدق بريكة دم مركان مشاركة قاطو أيا وحنا ندي أودي كرو أو أنا قاعد دين هلي كرو أنا دين صوت رايا صدق دي بريكة دم مركي لجاري أو تيجي قاطي بوحو قصودرة صدق هذا من $100 لقيت يا من $100 أيوة قصودرة من أنا هاي صاعي نك هاي صاعي أنا واسقني أو مقعك على فيسبوك صوصة مستي we all know you صدح $100 أيو صادرة من $100 أجو نك عبد السلام لنه والله والنا يا لكن نحن معها رنتنا هذه شيء لكن I wish إنه أكل لها أو نكوش محيتي عن لوريرين له I wish هل يوال صدح $100 بالله صادرة صدح دي $100 أو ويلك أسوي وصادرة مشاركسي مركل عيا الله وحلوين عبد السلام عيا جوسنية هذا هالكعير والعكاكين asagoo aan awoodi karin ayuu hadana yiri isuga kowda bisha ayaan qaadan doonaa bisha 15 ayaan qaadanaya lacagta jeegisi markuu qaatay ayuu yiri Cabdisalaam oo walaal maadaama aad guursanayso $1000 waa jeegaygii oo dhan ayaan ku soo diray qaado wallahi inaana been idin sheegin oo billahi inaana been idin sheegin walaalayaal dhageysta hadalkayga meel foogna gaarsiiya $1,000 oo sideeda u xiran ayuu Cabdisalaam u soo diray $1,000 oo sideeda u xiran ayuu Cabdisalaam u soo diray wiilkii wala waxa la yiri niyo anagu ma rabna maalba inaan ku soo wacwaanee bil kasta waa inaan $1,000 noo qortid waxa dhahaayana waa bilacad caashiqa waa boosaneerada caashiqa ninka dhahaaya waa beesada caashiqa asaga ayaa yiri waa inaad maxay to $1,000 bil kasta noo soo dirtaa wiilku wuxuu yiri walaal $1,000 aniga bal waxa la isiyaa $1,000 way ka yar yihiin maxay to ma idin soo ma awoodi karo reer baan leeyahay noloshayda ma awoodi karo inta aan idin soo diro maalintaas ayaa waxa lagu yiri ballan ilaahay waxaan kaaga galnay taan kugu dhigu dhahay taan kugu dhigo haddaan saantii lagu qabto saadagta haddaan intii lagu qabto aan White House ka laga saarinin marada aan ku jiro shaarka aan ku jiro nin kuma jiro shaarka uu ku jiro nin maba ku jire hadduu nin ku jiri lahaa kaas ani asaga wax badan isma dhaano run hadduu asagu laba sii lahaynba waryaara run marta Soomaali sidaa dadkiina halayd kugu hoos googoosto oo maalin walba xaq darrada u fiirsada maalin kasta xaq darrada saa u daawada anigu daawanay runtaan ku idin sheegin runtaan fartaan ka saaraya xaq darrada diida wiilkaas masaakiinka de abuse waliba ninkan gaaban wuu abuse garay wiilka wuu abuse garay wuxuu ku yiri ballan baa ka qaaday geedkaad gashaba ha ayagi baa soo wacay bukaan socod waxba aan hay soo wicinina boorka waahid runta ayaa dadka la idinkaga sheegaya ummadda Soomaaliyeed dalkiina iyo dadkiina u istaaga wiilasha mareexan oo habeen iyo maalin la ceysanayo oo fanaaniinta ah oo dalkooda uu soo abwaaninta ah oo habeen iyo maalin
annagoon midnimo qaran oo jirin dalkooda u halgamayay oo habeenii maalin ciidankooda ka hadlayay oo habeenii maalin la ceysanayo sababta loo ceysanayo ma taqaana because suuq ka baxay wuxuu rabaa inuu isku soo caan saaro nimanka marixaan bal u fiirsada hadalkiisa u fiirsada markuu hadlaayo kaliya u fiirsada ha ilma ciyaar jecel wariyee way soo wacday wax wacday iyo wax la hadlay iyo wax yaqaana iyo wax kabaha ay qabaan xataa kama yaqaanaan بس أنا هذا وحن كوجو جوابيا المعيار تعل رجع وجوابان أديه وكلوا ما جوابان أنا أديه كوسو جوابايو والله المعيار تعل أنا هدو ولا كي يقف كساو قلدم يبهد هدو يهي يا كيس هدو يهي بوانك قبنايا أنا كو جوابايو المعيار تعل رجع أيه وجوابان هذا بقى أنا كوجو إفر نكون مسو جوابايا نفتي إلهي ورهبان يا مال مركو صقر مريحاني واجي هرنا محي هانجرتي مجرتين محمود سليمان مجرتين دول كانوا قوينية ها دول كانوا قوينية بوففا دول كانوا قوينية ورما سكول عادي أو ما وحبرتي أو ما عشان راستي وحقلوين كي على يصدري أو ما قرستي أو ما ضمت هذا أدوار الله راح يكسر قيستي بلا شرعي بس شنية 8 سنة أيوتشوغا يربطوا بلا شرعية ورما ضمت هذا تقاني حوجين حلاش عيان سعود جو كوجين حوجين حلاش عيان ماني كسود رجنا أنا من ما قرنا والله أنا يهبل دهني أنت هني دي شيء لكن والله أو بالله أو طلّاه أبال ملها أو وجه ملها أو درش ما يقان أو ولا كلمة ما يقان أو صومال ما يقان عبد السلام كأولي هاي عبد السلام بالرانة اسمه كيدرو وحولي ترى كان أنا فري سايس إله وحكى له دودي ترى إيمان كيقان مركو حنا قابو ما لها شأن هذا إسكدا كان أنا فري سهاي كان أنا فري سهاي ومحيط وحلو قبع علده أنا علده فري سهاي ده متكلا يدي شيء يا ولا ليا Soomaaliya cod baa la ii soo diray cod waxa la ii soo diray uu leeyahay boosaneerada caashaqo Cabdisalaam u duubay oo uu leeyahay wariye sida de maxay tahay naagti ma jeertay say gacanta kuugu dhigtaba way ku xiniya saartay wariye waa naagti way ku bedeshay dereeraha sunaaq ninkay helaan way bedelaanay wariye wallahi oo billahi oo tallahi kitaab jaamac man kugu maraya wallahi oo billahi oo tallahi dhagahaygan ku dhageysta waana haaya waana soo saari karaa gabadha Soomaaliyeed ee beautiful ka ee Soomaaliyeed qabiil alla qabiilkay doontaa ka ahaato aniga ayada iyo Cabdisalaam baa xigay oo wiil walaalkay oo haddana aan isna qaanay oo isla soo halgamnay ahaa intaan balaayadu qaadanin laakiin hatta gabar Soomaaliyeed oo guursaday ilaahu may qoladay rabta ahaato may habar gidar ahaato may muhursada ahaato may gaal jecel ahaato may maxay tahay xawaal ahaato may isaaq ahaato may habar wal ahaato habar jecel maxaa u geeyay inuu u duubo bal ninka cuqdada ku jirta iyo xaruunka ku jira iyo xumaanta ku jirta Soomaaliyeed أول واحد هاد شيء كذا دن مجرتين ما نلقوا جينيا بريها واحد سعته مريحان ما نلقوا جينيا وآخر واحد سعودي محيط مهرسنا نلقوا جينيا وريا باك أوف وحنا هاينا وليبا information بدن أيان هذا كهايا أو قصة واحد قصص ما يصير بتلان مركز جوكتي now ولي جاي واحد هاديناي نكان محل قسمي ورم بعيال عاجية ورم بيال وقول حريدي ورم حال قسمي ولي جاي هاديناي لكن وان اوغاي وحي لوgu sameeyay everything waan ogaay wariyana dadka amansi oo midnimo qaran dambe mardaba ma soo hadal qaadi kartay midnimo qaranna aanu ahaa qofkii ku keenay ayadoo midnimo qaran cirka marayso ayaan ku keenay war afraad sac waan halganaa mana dhahna anagu midnimo qaran baan sameeyna midnimo qaran baan waxayna waliga intaan mid soo ofrisi baa soo wacay asay laftirkiisa ay soo wacay ka sheekeeya bulaacad boosaneero beesa doone dal iyo dadnimo iyo maxay tarxiniyo raganimo dal loogu dagaalamo malihid hadaan lahaan lahayd juuqda lama maqleen inta halka ka baxda ayaad qof kale ahaan lahayd mara tuugsanaysid kuwa dhara doonaysid afraad sac igu shubtay $150 baa nin dhan oo mutacallim ah oo Amerika la dagaalamayo ayaad ku soo cayda $150 baa lagu soo caayay wiil dhan oo mutacallima oo awlaadayada maanta ninka kaliya oo u ah role modelka ah ayaa lagu soo caayay maanta waxa wiilasha mareexan wiilashu caynaya ma taqaanaan wiil kamida hadda PhD gibu qaadan raba labada wiil oo caynaya mareexan ku ay midnimo qaran bay ku jiraan mid kamida oo already graduated PhD waay war aduna ku leeyahay waa ka yar yahay cunug ka yar waay bax school aad oo bax wax baro oo naftaada waan ka naxayay inaadeer orado school aad wax baro oo umada ku mashquul oo dalka Soomaaliya ku mashquul oo maxay tahay dalka Soomaaliya qabyaalada baas oo dhadhac habeen kasta qof ala sanifa war miyaad aragteen idinku walaalayaal adduunyada miyaa la arkay qof habeenku soo xidaba subaxii la soo kacayo qof inuu caawa la seexana prime minister ka la soo kacaya prime minister kasan khayr xarweyno khayr keero dhageysta video yadiisa dhala isku soo dardaraya dhageysta ana idin soo dhigaa YouTube-ke
iyo maxay ta kulli intaan youtube ka soo aruuriya anaa kulligood suuqiisoo dhadhajinaya dhagaysta waxa afkiisa ka yeeraya khayr rixma gabna ha maxay ta bal qabiilada aflagaadada waagii horeeto oo nagu jiran 100 jeer aan waxaan ku yiri habar girid racay war habar girid racaynina war habar girid daay aflagaadada war waa tolkayo war waa ehelkayo war waa reerka Soomaali ugu fiican war joojiya waa bukaan socod aan leeyahay jamiilo markaan dhaw war qabiilada caayn waxa leeyahay waa bukaan socod haddaan dhaw war Puntland ma mani kara haddaan dhaw waxa leeyahay waa bukaan socod waa reer Puntland war haddaan dhaw isaaq cayna ma isaaq baa naga xigtaa isaaq ninkaana ahay war maxaad caynaysaa aflagaadada joojiya war maxay loo caynaya maxay ta isaaq geystay qofka siyaasiga ah marka fariiso qofka siyaasiga ah kaliya ka hadal laakiin ummadda dhan ha isku qaadin oo Sacad Muuse iyo Ciise Muuse iyo Cali Muuse maxay ta yaan caayin dadka la aflagaadeynin waxaas oo dhan waxa la ii bixiyo jamiilo waa bukaan socod هو من نما أيضا بكان سعر أيضا بكان سعر أو بتلا هدا سوق هذا هو لا بلا يوكل قوسني هدا نهب ولا يالو استبرايد ده وحني وقلب نين كان يمحيت قبل كان نين كان يستيقظ كهرلا لكن دتك يان أفلقادين وقبيال ده هنالكدايو ودهوس لورا دعي هالدايو هير وحر الجار مركز ضرره ما وهذا هرم شرتين ما نلقوا جوينا به محمود صليبان نلقوا جوينا هذا وحيكون حكت مريحان نلقوا جوينا وحيكون حكت نما ويرشا مساكين طلع عينيو والله او بالله او الله Soomaaliyeey anigu macaawilka xanuunsan oo isbitaalka ku jira Soomaalinimo iyo wadanimo aan ugu tagay because waa nin wadani ah oo dalka u dagaalami jiray ayuu ahaa wiilashaasi waa gob dhashay waxa kaliya oo ay ceyrsanay waxay tahay inuu isku soo caasaaro oo ay u soo jawaabaan inay ku dhahaan oo midka xulko meesha ka war ninkan boodari lama dhaho boodari waa boodarigi batalaala kii dhigay boodari kaas waay ما ها بودري مقعان وبين أو أبوانمد وبين أو وحنا كم جيران أو أفر ويل أو أبواننا وحنا لنا نورا مكسو قاطي أو محيط الدمر ويل يجبر منا كم حشوده أو رج محيطي إنه أوتوا أبان ما بعهم because نك سليخة عبد الله أنا قال في سوقلي سليخة عبد الله لا في سوقلي أنتو ولي ما ماله بحلنا لها قبل هذا نفل قدين يا سنجل مادرك حين كويس كسوهر مريان الماء محيتي بالكي ورما سقى بقبر بقبينا وحنا جورسنيني ما سقى فري قبلها ورقبلها ما سقى فري ما سقى سنجل مادر ما كان يجي ما سقى أولادك كنالي أخلاق مجرته أخلاق من مجرته أو هذا وناج الشرف منا ملها سومالية وحيابها النوع عاسه هذا سنينا أو هو قص لنينا أو حق ضررها سبورجرينينا وايو مريحان وأمة Soomaaliyeed oo waliba waa madaxdii Soomaaliyeed waa madaxdii ummadda Soomaaliyeed soddonka sano godka ku dhacday kor u soo qaaday weeyaan midda kale dadka oo dhan yaa la aflagaadeynin ninka rabtid oo siyaasiga aad rabtid inaad ka hadashid waxa tirahdaa siyaasigaas war hadduu farmaajo rabo inuu maago muu farmaajo kaliya ka hadlo maxaa reerkii dhammaa oo sade daba dhigay maxaa mareexaan oo dhan daba dhigay maxaa daba dhigay maxay tahay muhursad oo dhan oo shiikh iyo shariif bade شنا وحولها مرصده بيري إن أيقو محيته إمام ماغان وكوا برايم منستر كسكويين أوداي أيجا هموجين ما تقنا أوداي أيجا ورهايو سعلان واسك كعلنية أنا واسك كعلنينا والله إن نقعمها بالروكو هاي سنين ناسو شواق أو عيتن أو بخ ده أو محيته صدق هذا تشارة وكوري أو رفاسن أرى شرع دونه أو دنت هذا أقود هذا ضمن ما لا يضحي لكن هبين يمال أنا شقينا نيجي تيد أو هبين يمال نقصو شقة تكتيد هنقصو شقة تكتيد من قصبها هي واردين شيء ولا ليا ما مليون هالودر قلا كلا هالودر قلا ده من قص كعودين كرتا أنا بادي أو من قص تومي كرا ولا ليا لو نكاسيت هكوقا بحيتي هكتمو وحو بهاي إلا قطمة من قص مريحان وحو تاجني وبهاي إلا قطمة من قص قبيلة ديت أردن وحو بهاي إن فح يؤنس لوجليو أيوه بهاي هبين يا مالي قبيلة سعطة ورمان ترى يقول داوي بقول كنت يصادر عن كوع عاية بكون يشان بقول بالشيء حتى أكون يشان بقول لنا رمين بين أمسنة وانكي نيكا دان أو متعلم كا أو أمريكا لا دقال ما بقول كنت كوع عاية بقول $50 من صوت الله صادري أو اللي نوعي أسوق بريو كلا وينجرين دانا لما بري كدم بونا وينجرين كساكية لما بري كدم بأيو وينجرين قف كان وأنا محيط وحكوني دمر كم عيان وها دمر كم عايو لكن وفي رسالة هذا الكيسة سجل بعد الرئيس كسهر مريان ناقة بيس كسهر مريان ناقتي قل ناق حتى نايا مدهو إلا قف جربا ما بأهني ناقنا لما هذا ناقنا وحلو محين ناقنا وحلو مهايو واسك هذا اللي هدول حشونايو كبر بمسوا هذا القادين تمر بمسوا هذا القادين وحونا أنا يقول سمينين ملها وحونا يقول سمينين أو أفلقادين ملها كل مركا يدي شيء لقيا قل إبرر قل
marba nin igu soo dir ninka aniga isoo doontay oo yirnaa midnimo qaran igu soo wareeji oo odayga jooga maxay tahay sharaf uga mudan yahay ninka jooga maxay tahay baalkii asaga ayaa dabada ka soo riixoy naagta ma jeertaan ka qaad baalka because aniga reerkan baaba nabcay baa meel ay ku jiraan laakiin naagtu waa tii ayaa asaga keentay anwaana asaga keenay cabdisalaan gentleman asaga aniga isoo doontay oo waxaan ahaa midnimo life oo wadanimaan ka hadli jiray reality-ga waata xaqa waata kulligood labadaba waan hayaa message-doodii cabdisalaan gentleman maanta ugu horeysay oo message soo diray waan hayaa maxay tahay bilaacada caashaquna maanta ugu horeeyay oo message aan u diray waan hayaa anoo dhahayo walaal sharafow qaaliyow kaala wanaagay wadanimada aan wada aan maxay tahay meel ka wada bilowni aniga ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan isu keenay mid walbana luuqa u galay kuwaasuna kamid aha war waxaad moodaa markuu hadlay wuxuu ku leeyahay midnimo qaran how many dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa u soo halgantay saddex qof oo qiimahooda aad yaabaysid baa asaga dartiisa aflagaadooyinka dadka waa aflagaadooyin uga baxay oo yiri aflagaada ma doonayno iyo aflagaadada maalba uu dadka aflagaadeynayo inta darteed uga baxay ninku caynaayo maanta oo leeyahay maxay tahay duqbilow ma ahan maxay tahay waa oramo alla ilaahay adaa qoti oo aan ahayn dashish le iyo maxay tahay darwiish ka sheegatay walla kuwaas meel baan uga dhacday because dadkaas qiimo iyo sharaf baa lagu yaqaan nin darwiish gabar darwiish ma caayo horta ko gabadha media soo fadhiisatay oo aad tiri mareexan weeyaan oo aad aflagaadeynaysa adeer waa gabar darwiish ninka aad maxay tahay dadka aad ugu sheekeynayso waxaan ahay maxay tahay reer hebel baan ahay reer hebel sharaf iyo akhlaaq lagu yaqaan iyo wanaag iyo ixtiraam ummadda Soomaaliyeed oo ay u simantaan laakiin habeen iyo maalin nin qabiil caynaya oo reer islaameed ku taagan oo shilmaan loo soo dirayo lagu shumanayo kuwa dhalalow kolbakis beesadon waryaa mareexan ka fadhiiso oo bag off oo dadka daa oo tolka isku dirin waryaa tolka habeen iyo maalin wuxuu isku soo faynayaa maxay tahay ogaadeen iyo mareexan ha iska celiya ha cabdimadow axmed madow baa yiri waxaan idin hayaa oo idin soo diri doona video yaashi uu ku caynayay axmed kismaayo maxay tahay madaxweynaheeda ama gudoomiyaheeda uu ku aflagaadeynayay kulli waa idin soo jarjarayay dhageysta youtube kay ka buuxaa asagoo sidoo u caynayo hadaad aragtay caydana koobay ugu jirtaa cayda ay horta looma tilmaamo xaqaas waa ka gangister cayda koobay ugu jirtaa sidoo u caynayo maanta wuxuu leeyahay ma taqaana ha arutaga ha prime minister kow arutag axmed madoobe ha waa ninkii dhuxuleysista iyo balaayo dhan u bixiyay waxaan idin soo diri doonaa oo arki doontaan axmed madoobe asagoo aflagaadeynaya oo dhulka lagu garaacaya annagu markaan hadlayna professional baan hadli jirnay asagu uu ku galgashaa meeshu ku hadlo professional baa sheegaysaaye waa dhaga xiran yahay asagoo ordaayu soo galay Sweden iyo meesha uu hadda joogo Talyaaniga wax aan kuula haraayo soo lagama daba reeb wayn qabyaalad iyo yaa kan maxay tahay ma jeerteena iyo maxay tahay mareexana iyo maxay tahay muursada iyo reer hebelowa wax aan kuula haraay malay soo fadhiiso abo googaradana waa ku haaya ii soo fadhiiso media laba googradoo iga waaweynaatayna waa ku haaya ilaa waa kuusantay aniga iga kuusantay aniga laba googradoo iga waaweynaadeen waa ku haaya iyo laba rajistiin oo ku soo tawl caareenayo soo safo والله بالله يطلع نرجع إنه كوتش وابين أو إنه كوتش وابين ويلاش مريحان والله إنه كوتش وابين أو حتى مهور صلاة ما إنه كوتش وابين قبله إنه كده كوتش وابين ده الدمس واحد هبين يمانو وحو دولة دقالم ياشيل ما هيسيان وحا وقف لقادين ياشيل ما هيسيان وحا ويلاش مريحان وقف لقادين ياشيل ما هيسيو وحا ومحيتين دولة دقالم حي أنا كان يقول إله يو ما يوايدي كرتا هبين مال دولة هدلقنا والله يقول كان كو قراعية maxay noola soo hadli laayihiin na maxaad noo qabatay waa ninka codadkiisa baan dhageysinaya na maxaad noo qabatay dhageysta videoga aniga uu live ka ii soo galay uu ka hadlayo markay wax noo qaban weydaan ka tagnay war anigu maxaan ku qabtaa hooyo shaqaysato Mareykan ilmaheeda korsata baan ahay am doing iska wuxuu qabso isxilqaan baan ku jiraa isxilqaan ayaan wax ku qabtaa dhammaan midnimo qaranna isxilqaan baan wax ku qabtaa waxaan leeyahay dawladda Soomaaliyeed Cabdinuur ha ku degdeginina nin halaca oo dooni raaca oo kuwa dhara ku shaqeeya Cabdinuur yuuna dadka ku dirin wiilka Soomaaliyeed ee dhalinyarada am so proud of him dalkiisa ku shaqaysanaya yaa lagu xadgudbin oo yaan qabyaalada ay meesha ka sheegayaan ay dhahayaan langaab buu ahaa 4.5 buu ahaa 4.5 haduu yahay dalkiisa meelihii ugu sareeyay kama shaqeeya 4.5 waxa la dhahay ma jirto reality waa taa Soomaali waa istaqaana si fiican bay isu yaqaanaan marka Soomaaliyeey wixii wax isku la hari waaya annaguna wax isku la warhamayna banaankan soo dhigayna qabyaalada habeen iyo maalin socota ee media annaguna leenahay war qabyaalada daaya haddana niman
dowladdan awal taageeri jirna maantana mucaarad baana habeen iyo maalin shaar noogu soo gashanayaan yeeli mayno walaalayaal waa inaa ka diidaan xaq darrada waa inaa wada diidaan maanta wuxuu intee laaf soo galay wuxuu leeyahay dowladda haddayna iska saarinin annagu cabdisalaanna waa u digaynaa cabdisalaanow annagu ku aflagaadaymayno naagta waxay tiri anigu ku sheegi maayo 5 bilood iyo ku sheegi annagu ma ku aflagaadaynayno laakiin adigu hana soo doonan haddaad na soo doonato 10 la yaqaan baan isaga ka celinaynaa wallahi inaan been ku sheegin adeerka ilmahaygaa tahay dumaashigay baa tahay walaalkay Soomaaliyeed baa tahay 2 sano isla soo shaqayneenay dad badan oo aad qiimo isku haydeen waa is wada cunteen aniga ha igu soo dhicin haddaba waa ku sheegaya waayo aniga isaaqna igama xigtid isaaq anaa kuwii ugu sarreeyay anaa dhalay kuwii ugu sarreeyay baan dhalay meeshii ugu sarreysay kuwii ugu sarreeyaan dhalay saaxiib waxay ugu soo dhicin madaxdoodii baan dhalay ugaasiyadooda suldaamadoodii baan dhalay hooyo waqooyi baan ahay soo hay ugu soo dhicin haddaba waa ku sheegaya inta aan xumaan iga ka soo gartay inta dhacda xal sawirkayga soo saarataa la yiri back off baan ku leeyahay haddaba waa ku digay ani inaan ku aflagaadeeyo ha ka yaabin inaan kugu dhacdhac ha ka yaabin laakiin hadday deyn weydo waa iska ka celinaya haddaba waa ku sheegay inta aan ka xishoon karo ka carar karo waa ka cararaya because dumaashigay baa tahay because waxa tahay ilmahayga adeerkood iga xishoon inta ha ii soo marin laakiin wallahi haddaad deyn weydo waa iska ka celinaya haddaba ku sheegay shalayto wanaag maal walba wanaag baan ka sheegay adiguna wanaag badan baad iga sheegtay oo life waliba u soo gashay afka shalay iga cayday igu amaantay war hooy ha igu aflagaadeyni haddaba waa ku sheegay ilaa waxaan dhibaatadan haysato waxay tahay adiga isma celin kartid waa hebelow ninka ku waalay waan ognahay qofka ku waalay waa ninkii sanaad ka cadaysay ee xaaskaaga u dhacay ee gabadhaada u dhacay dhaar ku maray oo yiri ballan baan kaaga qaaday inaad qabin naagta ma jeerteen waa ninka dhaar ku maray oo yiri ballan baan kaaga qaaday naagta ma jeerteen inaad qabin waa ku xiniya saartay waa gabar islaamiyada wiil islaamiyada isguursadaya ala ay xal wax walbana waan hayaa codadkiina waan hayaa codka markuu dhahayo ma jeerteen naagta ma jeerteen baa ku xiniya saartay oo nimankay guursadaan way xiniya saaraan waan hayaa codkeeda wallahi waa dhageysin karaa public intaan soo galo wallahi waan dhageysin karaa ninkan qabyaalada ku waashay ee ku qafiifay ummadii ee midda kale reality marka idin sheego ninkan qafiifka uu qaaday wuxuu ka qaaday midnimo qaran dadkii taageerayay iyo reer midnimo qaran oo kulligood luuqa gacanta u galiyeen runta idin sheega iimaankiya weynaaday wuu kala weynaaday markaasuuba wuxuu isiriba shawaaduunka baa iskale annagana qiimaheena dadka waa qiimeynaa aad baan u qiimeynaa qof kasta oo midnimo qaran waa qiimeynaa asagana gooni baan u qiimeynaa waxaan rabnay inay dhalinyarada dhan isu timaado qiimihii oo gacanta luuqa loo gelinayo oo kulli luuqa gacanta loogu geliyay oo xataa gabdhihii Soomaaliyeed iyo wiilashii Soomaaliyeed oo taageerada noo ahaa luuqa gacanta u geliyay war waxaan ku Kuwait baa lacag looga soo diraa Kuwait dadkii Soomaaliyeed ee midnimo qaran taageerayeen qaarkood ay soo waxay ii sheegeen Kuwait inay lacag uga soo direen gacanta luuqa loo wada geliyay gacantii iimaankii cikuba ka aadeeba bal kaala qabo asoo waalan soo gala maalba waa u jeedaan waa waalan madaxa laga galay دقبلا وحواي وأرمو وسيد محمد عبد الحسن دشيسي وريا وسيدكي وسكن سيد أنا رتكو شيء دقبلا والعام قاطو حوجي سحراش وشقيستا شن قاري بكلية أمريكا قرؤ لي كلية أمريكا غير كسي أولادي سايو كلية أمريكا وأنا كايريها he take care himself أنا كو شيء لما قف هذا قف نقنا قطي أنا قطيه دشيش لنا متيد درويش لنا متيد لا سو سيخيه بaa tahay qolo la soo seexiyay way meel bay ka heleen labada midna matin meel bay ka heleen ana runta ku sheegaya war maxaa Sulaaqa Cabdullaahi ku geeyay war maxaa ku geeyay gabadha dhalinyarada mutacallimka ah ma sha Allah ay wariyaha war maxaa ku geeyay qof kasta oo dhaqaaqaya war sheeko kale idinka ilaabay caawa si fiican iga raaxaysta wallahi runta idin sheegaya wiilkan dhibaatada ku dhacday ee mentally ill uu noqday caawa ana runta idin sheegaya not only that waxaan idin soo sheegay oo dhan waa run على سو هداي دغيسنيsid walaalow macaano wiilkaas adaa waalay horta markaan ku sheego sheekada ugu daran wiilkan waxa waalay waa calasow 400 oo marba wuxuu igu yiri calasow dawladda hor dhan baa wuxuu soo dira dawladda hore wuxuu soo dirtay guriyuu ku leeyahay Sweden guriyuu ku leeyahay maxay tahay Holland maxay tahay dadka mucaaradka ah la jecel yahay ha qofka mucaaradka waa la jecel yahay waa laga dambeeya qofka mucaaradka baa kala fura adduunka qofka mucaaradka baa wax kala waxay calasow ayaa wiilkan kaba u galiyay because wuxuu aaminay calasow inuu millionaire yahay wuxuu iska dhaadhiciyay calasow wuxuu haystaa lacagta adduunka waxaana lagu siiyay mucaaradnimada dalka Soomaaliya uu mucaaradka ku yahay qabiilada caynayo ayaa lagu siiyay
idinku sheekada weligiin ma maqasheen wax badan oo aan idin ogahay caawa farteen ka saar taa ogaad wax badan oo aan ogahay aan farteen ka saar marka calasow ayaa ka waaliyay calasow ayaa dhibaatada geliyay calasow ayaa meesha dhigay calasow ayuu isir ku dayo wuxuu isir milyaneerka calasow noqday adna aan noqotid calasowna waa uga baxay marka waxa leenahay adaa maxay tahay dadkan xanuunka ku ridee dawe calasow saasaan dhaynaa calasow adaa xanuunka ku ridee dawe dadkan waxay aamineen hoolan oo dhan guriga inaa ka gadatay adduunka dhan inaa gagadatay habeen walba inaa wadan ka degtid waxaa galay masayr ah lacagtii adduunka ayaa dawlad kasta laaluush bay siisaa lacagtii adduunka ayaa lagu soo shubaa sidaa darteed waa inaan annagana lacagtii helnaa meesha wiilka amarku kaga dhacay horta waa halka anaa runta idiin sheegaya ayadoo sheeko qabiil bay isaga qafinaydo cuqdadu ka buuxdo oo asaga dhanba fuusta dhan oo qabiil oo qabyaalad iyo xanuun uu yahay ba haddana sheekadaas calasow masayr calasow ayaa ku dhacay masayrka ninka ayaa ku dhacay oo halkaa geeyay halkeeba ku keenay lacag baa la siiyaa dadku waxay jecel yihiin qofka mucaaradkay jecel yihiin qofka nacab dawladday jecel yihiin qofka aan u shaqayn bay jecel yihiin waa millionaire waa this waa keer millionairekii baan rabnaa marka inaan noqono hanala yaabinina haddaan ku dhegno maalinba qabiil millionairekii aan rabnaa inaan noqono walaaliya dhammaantiinba waan salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamaya ummadda soomaaliyeed ay gudbiya oo gaarsiiya waxaan idinka codsanayaa weligiin qabyaalada ha taageerinina qofka walaalka soomaaliyeed oo qabyaalada lagu taageerayo lagu aflagaadeynayo ha yeelanina wiil ina joora la dhaho cabdullaahi xoosh oo ah ciidamada dhan maxay tahay ninkii oo taakule ciidamada gudoomiyahooda oo u halgamayo oo maalba Minneapolis iyo midnimo qaran meel walba ka halgamayo oo wanaag raadinayo oo dalkii iyo meel walba wadankii tagay oo ku halgamayo bay wuxuu ku leeyahay xoosh baa la sinimkiisa la dhahaa maadaama xoosh la dhaho waa mareexaan يا إمادة أوكي مادام حصل له ومريحان يا ومادام حصل له ومريحان دقيسو قف كستا أسوأ اللي أقول بحتى وحل لي ها نكار مجدا أسجل حتى وطف موقته وأنا أسجل تسوق كبحيا ها كاستف وأنا سوق كبحيا وحل لو عيسين يتقبلوا وحكلا معها وتقبلوا وعام تدخلنا أقول حرام أما هاي تمام بس وأنا سوق كبحيا عبد النور waxa loo ceysanayo waa wiil dhalinyaro oo mutacallima oo dalkiisi hooyo u shaqeynaya oo dalkiisi u hadeegaya waxa loo ceysanaya maxay tahay xogaaga noo soo diray maalba bil walba noo soo diro waa baad caadi baad ma maqasheen abo waligiina ma maqasheen ciyaal faacal dadyahow ciyaal faacal luqada dadka u istaag jiro oo dhijira baadkeen hadii kale waa ku dilaa wiil sheerka ciyaal faacal waa nimankan ana ku sheegay waliba ninkan aan ma sheegay ninkan waa ciyaal faacal dimaashiga xaqan dhiganaya dimaashiga yaa laga maag xaqa ii dhiga ciyaal faacal waa ninkan abwaanuna waxba ka ogeyn magaca waa ku ciyaaray magacii oo boodari ilaahay yaa nooga dhaqa waa in la dhaqaa magacii boodari oo bilic lagu dhaqaa ninkan waa ciyaal faacal tuubu gashana qofkii haduu tuubadaasi waayeen xataa mana yaqaan qofkan waxba ku taray war ma arki jirteen war ninkan waxay ogaataan Cabdinuur wax soo taray anaa wax soo taray inta yadiba aflagaadu noogu abaalguday aniga haddaan maanta dawladda Mareykanka u shaqeeyaa haddaan u shaqeynaa dawladda Soomaaliya wuxuu dhihi lahaa hal casilo dawladda Mareykanka naagtaas qabta buu dhihi lahaa kalab dawladda Mareykanka naagtaa qabta saasuu dhihi lahaa laakiin aniga meel ii soo maray because anigu America u shaqeeyaa waana ka aqoon fiicanahay waana ka maasha Allah isanahay alxamdulillah midda kale gabar alla gabadhu arko wuu caynaya islaanta habarta maxay tahay ha islaamay waxay isingal maadarka habeen walba wuxuu ku dhaga hadlaaya oo aflagaadeynaya waa gabdhaheena waa bishaara iyo maxay tahay gabdhaheena Soomaaliyeed ayuu caynaya oo anigu aan ku jiro ha laakiin anigu dumarka macaayo anigu abwaan baanahay abwaan oo xal qaado abwaan waxa la dhahaa ina ganay iyo maxay tahay wiilasha hargeysa maarta wiilka kale aan jecel ma sha Allah iyo maxay tahay wiilasha Sweden joogo abwaaninta ah oo maxay tahay aad saqaaneen iyo kuwaas la dhahaa abwaan akhlaaq leh dumarka ka xishooda islaamka ka xishooda qabiilada ka xishooda ka sharafta ka doonta wax walba laakiin qof aan sharaftii dhigto madaxii ku xirtay kastuumihii madaxa ku soo duuduubtay abwaan lama dhaho taas abwaan lama dhaho calasow masayr calasow ayaa meesha maanta u maraayo ku furay ninka calasow adduunka dhanba calasow nin aqoon la waay waxa laga yaabaa inuu xoogaa electronic ku fiicnaa adigu electronic xataa kuma fiicnid waxa laga yaabaa inuu asagu computer iyo IT uu ahaa adigu IT na mati calasow waxa laga yaabaa inuu maskaxiyan ما شاء الله يهي نين لكن أدو أنت متأدو حتى قانا العقد دقها اللي يهدي كلا فير
ورسال حلو ما هي فير أما هديك العلاج هذا فير محيط ديارنا دولة الصومالية أنا ما أنت لايف وسوق جاي وما أنت عبد النور كوسق جامان والله بالله هنا بين دي شيبين لايف ما أنت وسوق جاي أو دولة ده على كلمة إنه أن شعرها أن دولة ده أنا التاجر ما يدهني هرتان واحدين شيء أنا إسكا وحقب سان كوشوجنا ده ما أنت يمين مقرن شعرها وقبنا ذكينا دولة دين وتاجرنا هدين نوجين هدين نوجادنا ما كل جعلي waxaan qabanayna waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay wadaninimada laga daayo dhalinyarada Soomaaliyeed isqarxiska umada Soomaaliyeed ay midoobaan waxaan ka hadlayna waa taa waxaan u soo galnay midnimada iyo waxaan waligaan ka hadlaynay dawladda ka horna ma ahan waxaan ula dalnayn dawladda aan haydin garato position haydin siiso haydin no that's not waxaan rabno waxa laakiin dawladdan hadii intay media nin maxay tahay hungurdoona oo wiilka miskiinka shalay abuse gareeyay oo maxay tahay asaga mushaarkiisii u qaaf uga soo diray hadii maanta intay laaf soo galeen ballan baan ka qaadna shaqada inaan ku qoonsano ay dawladdu u maqasho ama ay xataa u dhawaato dawladdu waxay noqonaysaa dawlad laftirkeedu aan khayr badan lahayn waayo waa xaq darro wiilasha la caynayo oo waxba geysanin oo aan qofna waxba u geysanin war mid baa idin sheegaya wallahi billahi dhalinyarada Soomaaliyeed oo dawladda taageerta Mareykanku waa ku yar yihiin siday dadka eedooda la uga cararaayeen ayayba ku yar ayagoo kulligood wadaniyiin كل جود ودنيين هذانا اللي بكعرّاية وبكعرّين وحدة دولتي وضكي بوكعرّين ساستها هو قب ده شهبين يمان والعيسنا شوقنا مدهان مركا وريا حشوط وقبيالة ديس كده أو الله هو أبو تدب ونقو أو ضدك أسكت رئيس جوجي أو محيط مدوبة إيو نمك أسكت رئيسه إيو مريحان ويان كير ويان وردتكم يال مكان يجرو ضدكوا أهل ضدكوا ولاله أنا قرر ماشي كودر ولا يقانا كيف كاغي يحرقا بقولي كنت كودرا وحكلوا أبو عقيلنا سوء عباريسة ما جرتو وحكلوا اللعة عليها هي ما جرتو waxa la caleedahay waa $150 oo lagu soo diray Talyaaniga $150 abaal loogama hayn doontido because Talyaaniga aan waxba kugu soo diray mata abaal ba iga haysa dhalinyaro badan baa kugu soo dirtay ma abaal ba uga haysa birita ayaga u soo fariisatay afligaadeysa markaad ka weydo aniga laftirkayga markaad iga weyday afligaadeysi so stop right there midnima qarana asaasaheedii baan ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed darta uga baxdayna xataa waa ku soo noqotay hal maalin kuma tabin hal maalin أعدادي يا قبيل عيقاقي يا برقرادي والله إنا أنا كتبين أو بالله وطلعها واشعلان هذا النيرة الصومالي إني هالملوذة شوغانا وناق وضان لكن مركا قبيالا اللي كده ما ويدي أرايقي بدنا يا مال بمساج كنا لسو دراي يددك كاعب هذا يددك كاعلى علي انتاس أيان محيتي أنكا وحا مساج كيسا كده قيستي تقبلوا وادك تشميل عاي تقبلوا نولوشي سي معاين ويلك سمعت تقبلوا وحا بقودش على هايبا دمرك معايو قبلها صور عيني ماركيسي ولي جبر أصلا لايف وصو فريستي أو أفلقادين يا ماركن لكن كو أخي أدق أدو أنت صو فريستي جبرنا نيرا أو صوماليات أو شلا ولي بقى أخني مكلو أني أدوى سوقنا وراي تشوق عن كويري إداية سلاخو هدينا دين وايو أو وحياها مشكو ودان وحبدن بين أوجهي والله وحبدن بين أوجهي أو ولي ما سيتيان هيا جوجا أو حشورة هل حشورة أنا ساسان بالله هل حشورة هلا حشود الصومالية هلا حشود قبيلتنا هلا داير غير هلا عينين هلا داديو محيتي قفكم الريحان وانا نقرا مجرتين وانا نقرا هوين وانا نقرا محيتي هبر قدرنا وانا قبيل alla qabiilku rabo ayuu noqon karaa dalkiisana waa u hadli karaa haduu rabana macaa qofku haduu rabo inuu mucaarad noqdo war bal eeg war mucaarad noqo dawladda caacay hadaa rabtid waxa rabta ka sheeg madaxweynaha laakiin dhalinyarada meelaha marmaraysa ha ceyrsani because ayagu kuma soo ceyrsadaan كما عيسدان أدونا عيتان أننا وناقان قدبنينا لكن إنا سوء عيستيد أو ترى نمان كان وحن سوء قادين من ريحان دولة تاكولين آيو أو دولة محيطين إنها دولة دوي في عنتها shame of you وحو إيشا لإنو ليه بقول فيسبوك أو ضدك كعايو فيسبوك يدي سياعاو هالكان محيطا ياعايو أو سوء عيتما وأجيدا لكن أنا ما كلا جعلها ورهاي أنا ضيحان دقاه إما تقاني ضيحان سيحدا أبوه محيط القبل جوكر ضيحان اكتساب كنول هاي ضيح اكتساب كنول هاي نادر قروي يقوى هالكا وما بحوا حيابها حق درنا ما يكتو والله قف لقى قردرينها ولقى أنا أصيح حنين حتى فمل كي قد حديثات ضيطاي قف لو قردرينها والنبعها حق درها والنبعها قف لو يسكدر صعده ما نقول بالله فحوا وسوق المعيار شعر هل ما نسوي جوابه حتى لما أركض إلا إن ما بيقانا وحن جكرا بيباقه إيه وماشان عيت مايو ما بيقانا وحو يهيب ويابين بروح عن عيو لين هبين يا مالين
wuxuu cayna ilma bahalkii xataa ma yaqaano qofka hal mar caayo ka gambisa xataa ma yaqaano ka gambisa xataa ma yaqaano ka gambiso maanta waan cayday bal maalin kale ka dhigo hadda ka gambiso ma yaqaano every day hooy ma ciyaar jecel hooy ma ciyaar jecel waa ku soo caanbax ilaa suuqa ka baxday waa lagu yaqaanaa waxaa tahay ku soo caanbax war dhamaantii waan salaamaya walaalayaal barnaamijkayga intaasu maanta ku egyahay waxaan maanta xanaaq aan u qabo qabyaaladaan aan nacay habeen iyo maalin miidiyaha ka socota oo ree hebelow iyo aflagaadooyin ka socda dartood ayaana usoo galay wiilal aan waxba geysan dhalinyaro aan waxba geysan oo xataa qaarkood ku koran qurbaha oo aan aqooninba soomaali fiican oo la aflagaadeynaya la dhahay waa mareexaan waa khalad walaalayaal waa khalad mareexaanna dalka lagama xigo ciidana lagama xigo dhulkana lagama xigo madaxweynahana ayagaa shalna madaxweynaha maantana madaxweynaha ilaahay wuxuu ku siiyey nina kaama qaado maxay maamahada ii soo qora wax alla ku siiyey alla kaama qaado miyahay mise wixii alla ku siiyey nina kaama qaado war masayrka jooji iyo maxay ahayd $150 oo kuwaadharka ah telefoonka lagu soo shubanayo callboxka jooji walaalayaal dhammaantiinba waxaan idin leeyahay waan salaamaya dhammaantiina qaladaadka noocaas ha la joojiyo anu saasaan leeyahay qaladaadka noocaas ha la joojiyo wiilka cabdinuura wallaahi anaa xaqa og wallaahi anaa runta og wallaahi anaa la socda iyo billaahi iyo tallaahi wiilkaasi wanaag waxaan ahayn muusan samaynin ayagoo weliba u hanjabay oo caayay oo sawirkiisa meel walba soo saartay oo habeen iyo maalin caynaya wanaag waxaan ahayn inuu samaynin xoogiisa xalaasha ahaa war waxaan ku yiri xoogiisa xalaasha oo qorraxda aragtay Soomaaliya oo soo shaqaystay ayuu mushaarkiisa markuu qaato u soo diray gobonimo xagee laga helaa inta ka badan xagee laga helaa dadka abis greenayo walaalayaal ha yeelanina oo ha dhageysanina oo ha boomboonina oo ha maxay tahay ha dhihinina waa jirtaa because ma jiro qof walaalkii Soomaaliyeed wiil dhalinyaro ma shaqaystaan oo dalkii tagaan oo ka noqdaan asagoo kale wiil dhalinyaro ayaga la mid oo dalkiisa ka shaqaysanaya maxaa habeen imaan loo soo dhigaya sawirkiisa loo caynaya oo la leeyahay meeshu saaran yahan ka matajinayna asaga iyo mid kale oo jooga White House ka jooga dawladda White House ka dhalinyarada joogta haddayna wanaag ku ogeyn iyo sharaf marka horeba ma ka haysateen marka hore shaqo ma siisteen waa dad positionka ay joogaan loo soo doortay oo horena ugu shaqeynaya dawladii horena ugu shaqeynaya una qalmo waa so hadalada bilaa micnaha ee ka fiirsanashan la'aanta ah ee fudaydka ah ee degdega ah ee aan looga meel laga hadlayo war hal iska daayo inta ayaan leeyahay hal iska daayo nabadii nabalaan inta badan halkaan wanaaga oo dalkeenan u hadli jiray maanta laakiin waxa ay kartay sheekada ah ballan baan uga qaaday Cabdinuur inaan ka qaado in dawlad laga buriyo meesha ballan baan ka qaaday Cabdinuur ma iga bishish ka siin war mid kale idin haya Soomaaliyeey bal dhageysta videoga ninka xalaal ay soo diray bal dhageysta hadalkiisa wuxuu leeyahay dawladda ninkii ugu horeeyay anaa waxaan baray hadaladeedii bay ku dhaqmaan dawladda anaa waxaan baray dawladii 27 sano la soo dhaafay dawladda ugu horeeyay oo maxaabiis keenta ilaahay baan ku dhaariyay dhageysta this guy intuu waashay baa waxa ku qafilan dawladda dhan baa asagu meesha inuu saartay محمد عبد الله فرماجو إنه أساق معمله محمد عبد الله محيط فرماجو إنه أساق نجيسين دوره وحو كلها هاي دولة ده أنا وحانيري كل جاي ما أنت لسود أي محابيستا كل جايو أرجع صحاب لينا يا وحى برايم منستر كيناي أو يروى الدولة دي وتضمين لا تصنع مركي وجوه رئيسي أو محابيس دي بدأ ضل كينا الوجوس عليو برايم منستر كينا يا وورك استعمالي mid asaga laga maqlayna ma ahayn mid asaga laga bartayna ma ahayn asaga waxa laga bartay cayda iyo qabyaalada iyo maxay haytay bukaa socodka eraygaas waa runtiis asaan ka bartay taa kirid baan ku siinayaa asluutin kiridaan ka bartay eraya saaso noocaas uu yaqaanaa eraya noocaas uu yaqaanaa laakiin maxay ta dawladda anaa waxaan baray inaan dhaho dawlooy maxay ta dawlo waxaad tirahdaan erayga ah 27 sano ka hor war ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo kulligood activist ah ayaa wordka isticmaalaysay ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa tiri dawladdan waa dawladda ugu horeysay 27 sano iyo 30 sano ka dambo maxaabiisteena dibadaha ku baabaasaneed keentay erayga ku yaana dawladdu uga barteen haddana sharciga haddayna hagaajinin sharci waxna ma qortid mana taqaanin madmadooba Allah ku yaqaan wax walba ka tahay maxaa ku daba dhigay constitution kii dhamaa oo dalka uu leeyahay waa inay saasameeyaan maxaa tahay adigu who are you xagee dawladda uga jirtaa ma waxa tahay la taliyahoodii ma waxa tahay maxay tahay aqoonyahankoodii ma waxa tahay organizer-koodii ma waxa tahay who are you maxaa tahay waxba ma tihid
marka dawladda hadayna saasamaynin hadayna saasay walaal dhamaantiin ba ilaahay wixii dambiyaha iga cafiyo raxmaanku ilaahay baan ka baryaa idinkana walaal dhamaantiina cafi aliye masaabax wiilka walaalkay Soomaaliyeedna Allah soo hadeeyo qabyaaladan ha iska daayo war qabyaalada iska daa warna adeero qabyaalada iska daa warna adeero qabyaalada iska daa war qabyaalada iska daa wadadka ahdeen iyo maalin aad sawradooda wato aad aflagaadeynaysa daa war kuwa aad ugu haljamaysa dalkii baan anigu shaqadayna ka dhuminaya oo shaqadaan ka qaadaya adoo dalkii joogo daa kuwa aad leedahay dalkii aad joogtaan oo shaqadaan ka dhuminaya walaal iska daa qof aad wax ka qaadi kartid iyo qof aad wax u qaban kartid ma jirto waxaas aniga dhilay sharmta iisoo qoray waa asaga oo magac kala wata kulli waxaas hadaad aragtaan waa asaga wuxuu qabaa 100 xabo oo uu yiri dadkan ka ataagaraya waxa iisoo qoray waa asaga laakiin runta kama leexdo runtana xaqa ilaahina kama leexdo ilaahay baa neeyay xaqa sheega xaqa ilaahina kama leexanayo runtana kama leexanayo qaladkaagana waa sheegaya because waa disgaran weyde because waa xishoon weyde because afar ilaa ta ka saac qof baad ku rarantahay waa inaad habeen iyo maalin mudusha ka saarnaataa ninkii aad shala soo caynaysay oo aad soo aflagaadeysay oo maxay tahay dhuxulo barraqo bahalkii ku haysay oo 10 magac u bixisay waa ninka leedahay maantana 1500 buu ii soo diray waa in la daaya waa in la wixii marreexanka waa in la baduuga yahu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتنا ولا ليال وإن سلام يا أنت عيتمسي أنت عيتمين به وحصل وان قرنا مقعدة وطوع أصجع لكن أنا محوج للتجاه أنا محوج للتجاه ماله هم تاني وشيء جاية هم تنا رجع كمان نحسه ويلك صوماليات أو شقدي سلوك قنصنيين والله هنا نيلي بالله يطلعي أو الله ده أنا أمريكان شغل مال الدولة عيننا إلا يصير شقدة كبريان أنا ما نكس الدولة ده عيان شيء شقدة وكبريان ويل كان عيان أنا ما نكس سعر الله في أركيسان إلا ويل كاس أمان كالسيو خير بنسكوكنا دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته